Sheekh Rusheeye Yare ayaa si lama filaan ah uga soo hadlay gudaha magaalada Garowe, gaar ahaan salaxa ama garoonka ciyaaraha ee Classic Stadium, halkaasoo sheekha ujeedka uu tagay ahayd sidii bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan bukaanadii reer Laascaanood in badan soo wacayeen ee laga baajiyay safarkii halkoodii ugu tagi lahaa. Ayuuba oofiyay ballanqaadkii ahaa inuu magaalo u dhow Laascaanood ka dhigi doono xarunta, taasoo noqotay magaalada Garowe oo ah magaalo aan masaafo saacado ka badnayn u jirta magaalooyin waaweyn. Ugu horeyntii Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle Sheekh Rusheeye Yare ayaa shaaciyay in maalinta Sabtida ah garoonkaasi ciyaaraha Classic Stadium ama AJJ ka bilaabi doono shaqada Quraansaarka iyo midda qaabilaadaba. برحمة الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى وحنرب على الله مسلمين أن لو ذاقو سفر كي أن هكت كجليي وأنا كويري ضدكي أما أن أشهري إن أنا إعلام دون إن شاء الله تعالى ملودو ماشى سفر كو كباغلي بنرب هذا إن لو ذاق إن شاء الله تعالى ولا الله مسلمين ملك السيجوجان إن شاء الله تعالى علاجك وحو كفر من دونا أما وكبلاب من دونا مجال جروي عاصمة بوتلان وكبلاب من دونا إن شاء الله تعالى marka walaalaha hore u diiban gashnaa iyo kuwa hadda ay soo wacay telefoonadka intaba waxaan leeyahay insha Allah ta'ala waxaan noo balanaa magaalada Garowe caasimada Puntland khaasatan garoonka ama stadiumka oo ku yaala Garowe oo lagu magacaabo AJJ marka wuxuu ku yaala hotelka AJJ dhabarkiisa dambe marka insha Allah ta'ala waxaan rabaa walaalaha muslimiinta inay saa ay u ogaadaan billahi ta'ala qof kasto danaynaya inaan ku kulano aayadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee Quraanka Kariimka waxay noo balanaa insha Allah ta'ala halkan bayno noo balanaa insha Allah ta'ala 24 bisha ee ku beegan tahay sabtiga soo socda insha Allah ta'ala geesta kale milkiilaha garoonka Axmed Jaamac Jawle ee AJJ loo garan og yahay ayaa isla isagoo degan sheekha hotelkiisa u balan qaaday in wax kiraa uusan ka rabin inta garoonkaasi loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed ee la dhiban xanuunada sixirka iyo jinniga ugu daran yihiin xaqiiqatan markaan magaalada nimi anigoo maaragtay indheendheenayo meeshii dadka ay munaasabka ku aan lagu cilaajiyo waxaan aragnay halkan baan aragnay kadib waxaan codsanay maamulkii iyo milkiilihii garoonka in maaragtay intaan joogno oo meesha maaragtay nagu wareejiyo xaqiiqatan uu naga aqbalay insha Allah ta'ala isagoo wax shuruud iyo maaragtay nagu xirin marka ma hada Ilaahay baas kale thumma isaga nooga mahad celinayna dhamaan walaalaha muslimiinta kilibka daawan doona iyo dadka iman doona halka lagu quraan saari doono waxaan Ilaahay ka rajeynaa insha Allah ta'ala inuu Ilaahay shaafiyo ducadeena Ilaahay u aqbalo annagana waxaan laga rabaa maadaama walaalka muslimka ay nagu caawiyo intaan joogno codsigana maaragtay oo naga aqbalay in ummadana ugu gargaar halkan isagana muraad iyo danab uu leeyahay maaragtay noo sheegtay waxaan Ilaahay weydiinayna subhanahu wa ta'ala muraadkiisa daniis inuu Ilaahay u sahlo meesha uu isaga maaragtay muraadka uu kale yahayna si fudud inuu Ilaahay ugu sahlo insha Allah ta'ala marka qoraalkiina uu socdaa insha Allah ta'ala waxa bilaabanayo isdiiwaan gelintii horena u socotay laakiin qof walba isdiiwaan gelinayo waxa imanaysa insha Allah ta'ala garoonka AJJ ku yaalana isla hotelka AJJ dhabarkiisa dambe insha Allah ta'ala khayr badan Allah idin siiyo Maxamed Yuulka intaan muuqaal ka lamida kulmi doono asxaabay waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.